soo dhawaada saaxiibadan YouTube hadii ay tahay markii kugu horeysay aad soo boqoto channelka noo saar subscribe muuqaalkeenan waxaan ku soo qaadanaynaa qaybtii labaad ee filimka qoyska waxaan arkaynaa Dan oo la hadlayay saaxiibkii Dan isla markiiba waxa uu galaya ama khaayad uu kula balansan yahay wiilkiisa Kali asagoo weydiinayo arrimo ku saabsan Kali iyo waxa uu qabto Kalina waxa uu sheegay in uu jecel yahay aabihii ciyaarista gaming-ka kala duwan waxaana uu aabihii u sheegay in si degdeg ah aad ku qaadanaysid guul darro ama inaad guuleysatid balse ugu dambeyn aabihii ayaa ku fakiray inuu wiilkiisa Kali uu la ciyaaro ciyaartan gaming-ka kala duwan una ogaado sababta uu wiilkiisa uu aadka ugu xiiseeyo Dan ayaa ka soo muuqday gaming-ka waxaana uu noqday shakhsiga ugu fiican ciyaarista gaming-ka wiilkiisa aad ayuu ugu farxay laabtana ayuu gelinayaa waxaana uu dib ugu soo laabtay hoteelkii ay degnaayeen Dan sidoo kale saaxiibkii waxa uu siiyaa baaskoolad waxaana uu sheegay in ay jiraan dad asaga soo weeraraya xaaskiisa Jessica ayaa u timi waxaana uu u yimi ciyaalkiisa si uu ugu sheego in goobta hoose lagu dhigayo bandhigaasna ay hoos ugu degaan si ay waqti ay u qaataan Jessica iyo Dan isla markiiba Nani waxa la hadlaya wiil sidoo kale waxaan na tusayaa Dani iyo Jessica oo aad u wada faraxsan balse ciyaalkoodu lama ay joogaan oo waxay joogaan goobta lagu dhigayo bandhiga wax war ahna kama ay hayaan sidoo kale Nani waxa nafta u keenay wiil waxaana uu rabaa in uu la sheekaysto wiilkaasna waxa soo diray kooxda daba jooga isla markiiba waxa la tusayaa Dan oo soo galay hoteelka Danna waxa soo weeraraya rag waxaana uu iskaga difaacayaa baaskooladii uu siiyay saaxiibkii isla markiiba waxa qolka loogu soo galaya xaaskiisa Jessica balse Dan ayaa markiiba uga falceliyay waxaana uu ku soo tuuray quraarad u faraha oo ku haystay halkaas oo xaaskiisa Jessica ay uga soo badbaaday waxaana Dan waxa uu xaaskiisa u sheegay in ciyaalkooda ay goobta tan ay ka kaxeeyaan Kali waxa uu meesha ku dhex ciyaarayaa gaming balse Nani iyo Kali iyo Max oo ah wiilkooda ugu yar waa ay ka soo wada baxeen goobta intii ay ku jireen bandhigan aabahood ayaa u sheegay in ay jirto in ayaga baadigoob loogu jiro lana rabo in ayaga la dilo isla markiiba waxay maqleen xabado balse aabahood ayaa isku dayay inuu ka difaaco waxaana uu ugu dambeyn u arkay in ay naag ay soo weerartay waxaana uu isku nabay baabuur balse ugu dambeyn waa uu dilay naagtii ku soo qaaday weerarka Dan waxa gashay cabsi aad u fara badan maadaama uu xaaskiisa iyo labadiisa ciyaal iyo wiilkiisa yarba waxa uu ku wargeliyay inuu u samaynayo baasabooro si ay ugu tagaan Los Angeles ayna halkaas ay ugu noolaadaan kana baxaan dhibka kan iyo rafaadkan haysta balse wiilkiisa Kali ayaa ku gacan sayray arintan uu u sheegayo aabihii sidoo kale xaaskiisa Jessica ayaa ku gacan sayrtay waxaanay ku dhahday ma qaadanayno waxa kan aad wado balse ugu dambeyn xaaskiisa Jessica waxay wacdaa saaxiibadeedii hore ee ay boxing-ka ay wada ciyaari saaxiibadeed oo ku casuuntay diyaarad waxaana Jessica ay u sheegtay in ay u baahan tahay in ay ka tagto goobta tan balse isla markiiba Jessica waxay aragtay ninkaas oo ahaa kuwa ugu jiray baadigoobka si ay u dilaan ayaga Kali ayaa sidoo kale aqoonsaday in ninkani uu rabo inuu dilo ayaga isla markiiba Dan ayaa la soo wacay waxaana soo wacay ninkii haystay ayaga waxaana uu u sheegay hadii uu rabo in ciyaalkiisa iyo asagaba ay badbaadaan in uu yimaado goobta sidoo kale waxa la tusayaa Dan iyo rag kale oo soo wada gelaya goobtaasna ay leeyihiin raggii baadigoobka ugu jiray Dan iyo qoyskiisa Dan sidoo kale waxa la weydiiyay su'aalo waxaana uu ku yiri ninkii oo madaxda ahaa waxaad ii sheegtaa sababta aad ku dishay wiilkayga balse Jessica saaxiibadeed ayaa ku soo taagtay baaskoolad wayna la yaabtay Jessica waxa ay saaxiibadeed ay baaskoolada ay la soo baxday ugu dambeyn Nani iyo Kali waxa loo dejinayaa hoos halka Jessica ay isku dayday in nin ka mid ah ay ka tuurto goobta ninkii goobta madaxda u ahaa ayaa ku wargeliyay ragga u shaqeeya in uusan ka baxsan Dan balse Dan
waxa uu isku dayaa inuu adeegsado khibrad uu u leeyahay dagaalka, balse wiilkiisana waxa uu sidoo kale uu samaynayaa in gamingkii uu ciyaari jiray uu uga faa'iidaysto arrintan hadda ay ku dhex jiraan. balse isla goobtan waxaa dhammaan raggii kale ay ku soo wada taageen xabado daanna waxa uu isku dayaa in uu goobta tan uu iskaga caabiyo uuna ka badbaado, waxaanay ku jirtaa difaaca. goobtana waxaa ka dhacay dagaal aad u xun, halka Kalina uu Dronis uu ku hagayo aabihii, balse hooyadii Jessica ayaa isku dayaysa inay kor ugu soo baxdo qori, balse qorigii ayaa ka kala jabaya, waxaanay qoriga ay ku soo tuuraysaa saaxiibadeedii hore ee ay boxingka ay wada ciyaari jireen. goobtana waxaa taagan ciyaalkeeda. ugu dambayn Dan ayaa la qabtay, waxaana qabtay ninkii madaxda u ahaa ee baadigoobka ugu jiray Dan si uu ugu sheego sababta uu u dilay wiilkiisa, balse Dan isla markiiba waxa uu ninkaas uu ku dhufanayaa qori, waxaanay ku badbaadayaan sidaas. waxaana TV-ga laga sii daayay dhacdada tan. Dan iyo xaaskiisa iyo ciyaalkiisaba ugu dambayn waxay ku noolaanayaan farxad, mana aha kuwa mar dambe kala tegaya. waa inooya muuqaalka xiga saaxiibadeena YouTube. muuqaalkii ka horeeyay viewskiisu aad ayuu u yaraa, marka saaxiibadeena ku xiran channelka waxaan leenahay like-ta kor ha loo qaado, viewska kor ha loo qaado, maadaama aysan ahayn wax sahlan inaad muuqaalka aad turjunto, cod aad duubto, waqti baa gelaya. marka insha Allah saaxiibayaal kor ha loo qaado. anigana sidoo kale insha Allah muuqaalada tan muuqaala ka xiisa badan aan idin soo wadaa filmaan insha Allah ku ugu dambeeyay.